waxaa si weyn suuqyada magaalada Hargeysa looga dareemayo munaasabad ciid al-Adha awgeed taasoo ay naga xigan saacado kooban. Halkani waa suuqa ugu mashquulka badan ee magaalada Hargeysa gabi ahaanba waxaa istaagay isku socodka gaadiidka taasoo ay sababtu tahay dadka ka tukaamaysanaya suuqan si ay caruurtooda wax ugu iibiyaan ulana qaybsadaan maalmaha kooban ee farxadda. telefishinka RTN TV ayaa booqday suuqyadan si uu wax uga weydiiyo dareenkooda ku aadan maalinta farxadeed ee ciidka saacadaha kooban ka hadhay. waa maalin weyn, waa maalin islaamka ku weyn, waa maalin inta xajka joogtana ilaahay dambigooda dhaafo, inta kale ee aan xajka tagina loo baneeyay inay soomaan. marka dareenkaygu waxa weeyaan waa dareen farxadeed, waa dareen waxa weeyaan saamixeed oo aan dadka siinayo. ciidii hore dadku way kala baqanayeen waxa laga baqanay coronavirus. ciidii ay martay dadku saa ciriirigay maartaa. ciidii hore magaalada qofba ma dhex marahayn. wax alaala waxaan dadku wax ka iibin waan garaweyni. laakiin imanka ma sha Allah. Assalaamu alaykum dhamaan waxaan salaamay ummadda sharafta leh ee reer Soomaaliland meel kasta ku noolyiin. marka labaad waxaan salaamayaa ummadda qurbaha joogta ana ugu hambalyeynaya ciidul fidriga. waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogtaan dhamaan inta suuqa joogta dhamaan inta meel kasta ummadda Soomaaliland joogto. waxaan ku jirnaa ilaa 7 saacadood ugu dambeeyay munaasabadii ciid al-Adha insha Allah ta'ala markii takbiirtu bilaabmaysay 6 iyo barka mahrimo. waxaan salaamayaa ummadda islaamka sidoo dhammihiin meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay wa kullu aam antum bi khayr. dadkuna waxa jirta kullaytay ciid dadkuna way tabcaan waxa laga soo doogay masiibo waxa laga soo adduunyada saameeyay masiibadan la yiraahdo coronavirus. marka dadka oo aad isaga jilicsan awgeed ciidu haddana labadii cisho dambe aad caadi bay u in walaal kale joogay aad buu yar kulliyahay rawshroon ugu badan tahay. berigi hore imika ismid ma hadda berigi hore imika ka sii daran tahay marka ilaahay ma khayr ka rajeynaa in ilaahay noo ciidan adu xalay toban baan dardareemeynay in ciid tahay laakiin ciidihii hore 10 cisho marka bisha Arafa bilato dadka dakhligooda iyo buuqooda iyo dadka badan ee maraya ayaa maxay heetay in dardareemaysan ciid tahay. laakiin tan Arafadii iyo ciidii Ramadaan isku mid u bay tahay isku siin weey isaan karoonin jirin kow dhaqdhaqaaqi xoolaha xiran lacagihii baa xiran waxa kale xiran ganacsigii baan furfurmino wali aan soo deegin dadku iibsan lahaa amba ku socon lahaa. marka bulshada waxa la ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida. xamsada baare RTN TV Hargeysa.